wasiiro ka tirsan xukuumadda Puntland ayaa shir jiraa'id ku qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxayna fowdo ku tilmaameen booqashadii uu shalay galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu ku yimid waqooyiga magaalada Gaalkacyo halkaasi oo dadweyne badan kula hadlay garoonka kubadda cagta ee Cawaale. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Damancad ayaa sheegay in ra'iisul wasaaruhu baalmaray waxyaabihii ay ku wada heshiiyeen iyo jadwalkii maamuuseed ee ay ugu tala gashay Puntland soo dhaweynta wafdiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya isagoona fowdo ku tilmaamay booqashada ra'iisul wasaaraha ee waqooyiga Gaalkacyo. halkan waxaanu ku haynaa jadwalkii aan idinla wadaagaynaa aan u diyaarinay maantay oo aan rabnaa inaan saxaafadda la wadaagno jadwalkaasoo koobaya habmaamuuseedka aan ugu talagalay soo dhaweyntiisa oo ay ku jidho xataa inuu dego oo ku nasto dhanka Puntland muddada uu joogo arrintaasoo ay ahayd arrin raalli la isaga ahaa Puntland iyo Galmudug. hase yeeshee markii aanu galabtay ugu dambayntii ugu tagnay deegaankii uu ka deganaa dhanka Galmudug ayadoo xoogaa dib u dhaca jiray oo farsamo oo la xiriiray in la saxo arrimo dhanka amniga xoga la xiriiray waxaa dhacday hanaankii iyo maqaamkii aan ugu talagalay si mas'uuliyad darro ku jidho inuu ra'iisul wasaaruhu u diiday uuna yidhi anigu hanaana raaci mayo umana socdo inaan isimo u diyaarsanaa iyo odayaal iyo waxgarad aan la kulmee iyo dad su'aal ay weydiinaya waxaan u socdo waxa weeye dhalinyaro meel iigu diyaara inaan dhex galo dhalinyarada inuu dhex galo oo la hadla annagaba diyaar u ahayn jadwalkay ku jidhaa laakiin sida uu maamulay waxay ahayd si ay ka muuqatay runtii aysan ka muuqan mas'uuliyad ra'iisul wasaarenimo waxaan leeyahay ma ahan Xasan Cali Kheyre waa saaxiibkay shakhsiyan aniga laakiin ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo dawladda federaalka ee Soomaaliya waanu ognahay maantay heerka ay marayso meeshii laga keenay in lagu jiro geedi socod aad u qodxa badan oo loo baahan yahay dad mas'uuliyad dheellitiran ka muuqato oo ka gudbiya meesha maanta ay joogto oo u gudbiya dawladnimo haddii aan aragnay wixii maanta ilaahayna tusay waxaan maqli jiray cimrigaaga dheeraada geel dhalaayana waa ku tusaa maanta waxaanu aragnay waxay ahayd wax u baahnaa dad badan oo Soomaaliyeed ma reer Puntland dad badan oo Soomaaliyeed nala arkaan waxaa dhici karta kuwa badan inay hore u arkeen laakiin iska aamuseen waxaan leenahay waxaan cududaar ka siinaynaa isimadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii iyo cuqaashii u diyaarsanaa inay soo dhaweeyaan oo ay ku soo dhaweeyaan madaxtooyada Puntland caaway ra'iisul wasaaraha wixii dhacay oo aysan ahayn wax mudankooda ah waxaan rajaynaynaa haddii la ahaydmo arrintaas inay noqoto mid ay ka dhalato faham aragti dheer leh. qabashada shirka jiraa'id ayaa waxa uu ku soo aadayaa kadib markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu ka laabtay waqooyiga magaalada Gaalkacyo halkaasi oo qorshe u ahaa inuu kulamo gooni ah la qaato wasiirada odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo taasi oo ay kala hadli lahaayeen Puntland dawladda Soomaaliya sidii ay u dardargelin lahayd isku tashiga ballaaran ee ka socda gobolka Mudug. Axmed Jaamil Maxamed Caano Somali Cable TV Muqdisho.